أبابلي أو سو كشغي أو كامبين وقع إن شركي تركي اللي يسوي ماده شركة معنيه سووها إنه كتها غيره أو قيمة أو يرد إيريا ما بكسيرايو تاسو كجرانا سو كبريكي شركة كسر بحي أما وحي اللي هو شيء وحا شركة لندن لقى شيء ومدحوينها الصومالية هرمود كاها midnimo la'aan Soomaaliyeed iyo in qaranka Soomaaliyeed kala go'o taasoo uu si wacan uga turjumayo toddobada qodob ee heshiiska qodobka saddexaad oo oranaya waxa heshiis wada galay laba daraf oo kala ah dawladda jamhuuriyadda Somaliland iyo dawladda federaalka Soomaaliyeed waxa heshiiska qodobkiisa saddexaad oranaya waxa la isla aqoonsaday oo la isla xaqiijiyay oo la isla qeexay in dawladda jamhuuriyadda Somaliland ay ka mas'uul tahay dalkeeda iyo dadkeeda dawladda federaalka Soomaaliyeed oo darafka kale ahina ay ka mas'uul tahay dadkeeda iyo dalkeeda taa macnaheedu waxay noqonaysaa laba dawladood oo siman oo mid waliba dalkeeda iyo dadkeeda ka mas'uul tahay taana waxaa goobjoog ka ahaa oo saxeexay oo fuliyay oo ka soo shaqeeyay madaxweynaha Soomaaliya waana qarannimo dumisnimo iyo wixii loo dhaariyay ee lagu aaminay oo uu baalmaray iyo dastuurkii Soomaaliyeed uu jiray waxaa mudarooyinka ka mid ah maalinba isa soo taraya sida madaxweynaha Soomaaliyeed uu ummadda Soomaaliyeed sidii wax loo qaybsan lahaa ama saamiga dhaqaalaha noqdo ama imkaaniyaadka adduunyada ka imanaya international community ha noqoto ama saamiga wax qaybsi ee dawladnimo ha noqoto wuxuu ka gelayaa ama hadeer lahaya oo cadeymaheeda markii la dooro la soo saaraya si aan waafaqsanayn sidii ummadda Soomaaliyeed ay ku heshiisay inta laga baxayo waqtiga 4.5 ayuu wuxuu ka galay balance-kii 4.5 ayuu lumiyay wuxuuna wax walba ka dhigay in uu dhinac gaara u buriyo wuxuu maamulka Hargeysa madaxweynaha Soomaaliyeed u saxeexay oo la ogolaaday oo heshiiska Turkiga ka mid ah in mucaawinooyinka gaar loo siiyo oo ay mucaawinooyinka qaataan taasoo ay hore u jirtay imkaaniyaadka iyo mucaawinooyinka ay qaataan ama international community-ga ka yimaada inay ugu isticmaalaan dadka gobolada Maakhir Awdal iyo Khaatumo hub iyo dagaal iyo inay ku dhibaateeyaan iyaga wuxuu sii xoojiyay inuu isagu ogolaado intii ay sii socoto wuxuu wax ka aqbalay oo uu ogolaaday tababarada military iyo hubka in la iska kaashado taasoo macnaheedu noqonayso dadka hadda dhibaatada lagu hayo inuu dulmi iyo xoog iyo uu ku sii kordhiyo dagaal sii socda iyadoo waxaasoo bani ay jiraan wuxuuna ay imanayaan in qarannimadii Soomaaliyeed ay weeqanto waxaan fariin u diranaa ummadda Soomaaliyeed oo aanu leenahay war qof kaliya kama saarna xil qarannimada Soomaaliyeed haddii madaxweynuhu xilkiisii gudan waayo inagoo aan qabiil ahayn inagoo aan kala qaybsanin war bal aynu isla eegno war hadday ka muuqato inuu sharcigii jebinayo oo xilkiisii gudan laayahay oo waajibaadkii dastuuriga ahaa uu fulin laayahay war aynu isla eegno dee annagu waanu aragno waanu soo jeedinay haddii leeyahay Puntland haddii leeyahay Jubaland iyo haddii dadka ku midoobay USB leeyahay waanu aragnay waanu soo jeedinay ummadda Soomaaliyeedna waanu u soo bandhiganaa war nala ark oo haddii aanu annagu wax dhibaato ama wax khalad ama wax gafa oo aan madaxweynaha Soomaaliyeed samayn aanu annagu saarano
ورده قبطة ونقبطة ونوشة هديس أي جرتو يا العاطفرون يا قبول الرجل قرن ماذا يقول بالبادين هدين ولا بالبادين ده waxay ku noqonaa waxay haddaynu ku noqonaa nin waliba reerkiisii ayuu noqonayaa marka anigu waxaan ku soo koorayaa shirka London oo aad moodo isaguna inaanu waji fiican ku bilaabin oo lamid oo u muuqdo inuu la mid noqonayo kii Turkiga waxaanu leenahay international community hoos waxa uu eegaan hoos waxa uu eegaan sida ay rabaan baanu rabnaa in qarannimada la badbaadiyaanu rabnaa weli Soomaali may gaarin inay isku xukunto law and order sharciga oo ay u simeeyeen oo loo kala dambeeyo hal eegaan hoos ha u eegaan taasaanu raalli ka nahay aad baad noo mahadsantihiin wabillahi tawfiiq